بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qobanaha qodobada aan idin kugu haynana waxa kamid ah dagaallo la isku habeensaday oo gacanta la isula tagay oo u dhaxeeya xoogagga Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil oo ka socda saddex magaalo oo ku yaal koonfurta Lubnaan magaalooyin ku yaal dhanka kale waqooyiga Israa'iil ayaa la xoojiyay amniga iyadoo sidoo kale la joojiyay gabi ahaanba goobihii waxbarashada in ardaydu ay timaado sababo la xiriira weerarada Xisbullah oo xoogaystay Iran oo soo bandhigtay doonyo dheereeya oo xilli ay adkeynayso awoodeeda dhanka badda duqeymo culus oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo galabta ay isweydaarsadeen ciidamada Ruushka iyo Ukraine sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay haweeney dhalatay waddanka Suudaan oo 70 jir ah ayaa waxay xajka la gudanaysaa hooyadeed oo 90 ka dhaaftay waxay leedahay tani waxay ahayd riyadii aan ku riyoonayay noloshayda oo idil sheeko cajiib ah ayaan idinkaga haynaa amuurtan waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyadoo dagaalkan uu socdo 4 sano ayaa waxaa xoogaystay duqeymaha labada dhinac isweydaarsanayaan iyo sidoo kale dagaallo ba'an oo ka soconaya furimaha hore ee dagaalka wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen weeraro cusub oo maanta ay isdhaafsadeen Ukraine iyo Ruushka iyadoo Moscow ay ku eedeysay Kiev in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerartay warshada nuclear-ka ee Zaporizhia oo ah tan ugu weyn Yurub kooxda maareynta degdega ah ee gobolka Belgorod ee dalka Ruushka ayaa sheegay in 3 nin ay ku dhinteen magaalada Oktyabrsk oo ku taal meel u xadka Ukraine kadib 2 weerar oo kala duwan oo halkaasi ka dhacay dhinaca kale shirkadda nuclear-ka ee Ruushka ee Rosatom ayaa sheegtay in diyaarad drone ah oo Ukraine ay leedahay galabta ay beegsatay dhismaha mishiinada ee qaybta lixaad ee warshada Zaporizhia madaxa Rosatom Alexei Lekhashev ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkaasi uu sababay qarax balse aanu waxyeello u geysan qalabka ugu muhiimsan warshada sida uu sheegay qaraxu wuxuu dalooliyay gidaarka qolka mishiinada Ruushka ayaa gacanta ku dhigay warshada Zaporizhia bishii March 2022 tan iyo markaasna meel u dhow warshada dagaal culus ayaa ka socday xaruntan ayaa marar badan la kulantay duqeymaha intii uu socday dagaalka 4 sano in ka badan socday taasi oo kordhisay walaaca laga qabo shil nuclear ah weeraradan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii xoogaysanayaan isdhaafsiga duqeymaha u dhaxeeya labada dal magaalada Armavir ee gobolka Krasnodar ee koonfurta Ruushka mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dab uu ka kacay kayd shidaal inkastoo wax dhaawac aan la sheegin saldhiggaasi ayaa horay sidoo kale loo bartilmaameedsaday iyadoo la adeegsanayo weeraro drones ah oo Ukraine ay soo qaaday sidoo kale mas'uuliyiinta Ruushka ayaa waxay sheegayaan in diyaarad drone ah ay beegsatay markab shidaal siday iyo kayd shidaal oo ku yaala koonfurta dalka taasi oo sababtay dab inuu kaco halkaasi ha yeeshee lama soo sheegin waxa khasaare ah dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa galay sanadkii shanaad iyadoo weerarada joogtada ah ee labada dhinac ay sii kordhayaan khasaaraha bini'aadantinimada iyo qatarta ka dhalan karta waxyeello gaarta xarumaha muhiimka ee tabarta iyo kaamayaasha dhaqaalaha ayaa si weyn cabsi looga qabaa waa tahay warkaas aynu halkaas kaga gudubno markan xagga bariga dhexe aynu u tallaabno oo aynu qooransanno wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Xisbullah iyo Israa'iil dagaallo culus ayaa lagu soo warramayaa in caawa ay ka socdaan dhowr magaalo ku yaala koonfurta waddanka Lubnaan ururka Xisbullah ayaa sheegay in tan iyo maanta dagaalamayaashoodu dagaal ay kula jiraan ciidamada Israa'iil dagaalkan oo ay
doonayaan inay kaga hortagaan horusocodka ay wadaan ciidanka Israa'iil ee ku wajahan duleedka bari ee magaalooyinka Zuuteer, Hamar al-Shuqiif iyo Dibin ee ku yaala koonfurta Lubnaan. bayaan uu soo saaray ururka reer Lubnaan ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil aysan ilaa iyo hadda awoodin inay la wareegaan ama gacanta ku dhigaan goobahaasi. Xisbullah ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku beegsadeen cagaf-cagaf nooca D9 oo ay ciidamada Israa'iil leeyihiin, taasi oo ku sugnayd duleedka magaalada Zuuteer. dhinaca kale ururka reer Lubnaan ayaa ku dhawaaqay inay gantaal ku garaaceen kaabayaal ay leeyihiin ciidamada Israa'iil ee ku yaala deegaanka Mi'eel. war kale oo coladan la xiriira maamulka magaalada Kiryat Shimona ee waqooyiga Israa'iil ayaa go'aansaday in la hakiyo in ardaydu yimaadaan goobaha waxbarashada iyadoo sabab looga dhigay sii xumaanshaha xaaladda amni ee ka dhalatay iska horimaadada Xisbullah lagula jiro. taliska difaaca rayidka Israa'iil ayaa soo saaray tilmaamo cusub laga bilaabo maalinimada berri ee Axadda ah, kuwaasi oo dhigaya in la xiro dhammaan iskuulada ku yaal magaalooyinka ku teedsan xadka waqooyi ee Israa'iil sida Meron iyo magaalada Nahariya. isla markaasna waxaa la soo rogay xayiraado la xiriira isu imaatinka dadweynaha. arrintan ayaa la sheegayaa inay salka ku hayso Xisbullah iyo duqeymaha culus ee ay wado. hagaag imikana Ankara aynu eegno gaar ahaan war la xiriira xaaladaha colaadeed ee gobolka dhexe ka aloosan. madaxweynaha Mareykanka waxaynu ognahay inuu wado qorshe uu ku doonayo in wadamada muslimiinta iyo gaar ahaan kuwa carabtu ay Israa'iil la sameeyaan xiriir dhanka diblomaasiyadda ah. waxaa ka mid ah wadamada loo soo bandhigay arrintan Turkiga. horta Pakistan si cad ayay u diiday. waxay tiri annaga meel aan ku aqoonsanayna Israa'iil oo xiriir aan kula samaysanayna ma jirto. Sacuudiga waa xeeladaystay, isagu wuxuu yiri waa in la helaa dawlad Falastiiniya, markaas ayaan ka fakari karnaa inaan xiriir la samaysano Israa'iil. Turkiga marka arrintan muxuu ka yiri aynu eegno war ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa u sheegay warbaahinta in Israa'iil ay ku biiri karto madal iskaashi oo goboleed haddii ay aqoonsato dawlad Falastiin ay leedahay oo ku dhisan xuduudihii sanadkii 1967. haddii arrintaasi la xalliyo waxaan aaminsanahay in amniga Israa'iil oo si weyn uga faa'iideysan doono taageerada wadamada gobolka, ayuu yiri Hakan Fidan. wasiirka amuraha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay in qaab dhismeedkan uu ka koobnaan karo Pakistan, Turkiga, Sacuudiga, Masar, dalalka Khaliijka iyo marka xaaladuhu caadi ku soo noqdaan laga yaabee Iiraan sidoo kale. dhammaan dalalka gobolku waa inay isu ballan qaadaan ixtiraamka madaxbannaanida dhuleed iyo midda amniga, ayuu yiri. isniintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay aragtidiisa ku aadan ballaarinta heshiisyada Abraham oo ah heshiisyo caadiyan xiriir ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta. waa inay waajib noqotaa in dhammaan dalalkan ugu yaraan ay si wada jir ah ugu biiraan heshiisyada Abraham, ayuu Trump ku qoray bartiisa Twitterka, isagoo tahay 6 dal oo ay ku jiraan Turkiga iyo Masar, kuwaasi oo horay xiriir dhanka diblomaasiyadda ula lahaa Israa'iil. Turkiga marka sida waqta isaga qudhiisa waa xeeladaystay. wuxuu leeyahay haddii la helo dawlad Falastiin ay leedahay Israa'iil ay ogolaato, markaas waxa diidaya ma leh buu leeyahay iskaashi inuu dhex maro Israa'iil iyo wadamada gobolka. Sacuudigu dabcan isna wuxuu yiri dawlad Falastiin ay ku xiranta, laakiin cidda sida cad oo furcadida u hadashay waa Pakistan oo tiri annaga nama soo gasho Israa'iil. waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan ka dhex aloosan iyo weliba qodobo kale, ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. haatan bal aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Iiraan. inkastoo lagu soo waramayo in wadaxaajoodyadu ay meel wanaagsan marayaan, laakiin haddana heshiis rasmi ah ilaa hadda lama gaarin.
arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in xitaa qodobada la isku afgartay aan boqolkiiba boqol dhanka Mareykanka ka hirgelin waa in la furaa Mareyka Hormuz Iiraan xayiraada laga qaadaa lacagtii laga xayirana Iiraan loo gudbiyaa Iiraan waxay ku andacoonaysaa qodobadaas inay yihiin furaha wadaxaajood kasta laakiin Trump ayaa wuxuu leeyahay waqti ayaan u baahanahay si arintaasi aan go'aan uga gaaro haddaba wararkii ugu dambeeyay amuraha la xiriira haddii aynu eegno gaar ahaan warka ka soo kordhay taliska xarunta howlgallada ciidamada Iiraan ee Khaatimul Anbiya ayaa waxay sheegeen in dhammaan maraakiibta noocyada xamuulka iyo kuwa shidaalka ay waajib ku tahay inay raacaan marinada iyo wadooyinka ay dejisay Iiraan taliska ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan maraakiibta ay qasab ku tahay inay ogolaansho ka helaan ciidanka badda ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee IRGC ay taasi ku dareen in jabinta xeerarka marinada Hormuz ay si weyn halis u gali doonto amniga maraakiibta ku xadgudubta shuruudahaasi taliska ayaa ka digay in tilaabo kasta ay qaadan karto in markaa haddii aan la fulin ay markaa dhici karto in maraakiibtaasi la beegsado waxaana ay sheegayaan in ay muhiim tahay in ciidamada qalabka sida ee Iiraan ay si buuxda gacanta ugu hayaan marinka Hormuz dhinaca kale taliska dhexe ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa waxa uu sheegayaa inay joojiyeen markab watay calanka Gambia oo isku dayay inuu jabiyo go'doominta lagu soo rogay dekedaha Iiraan taliska dhexe ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa waxay sheegeen in markabka howlgab laga dhigay kadib markii uu diiday inuu u hoggaansamo amarada iyadoo gantaal lagu dhuftay qaybta matoorada taas oo sababtay inuu istaago taliska ayaa sidoo kale sheegay inay cuuriyaamiyeen 5 markab oo ganacsi isla markaasna dib ay u celiyeen 116 markab si loo xaqiijiyo hirgelinta buuxda ee go'doominta badda ee lagu soo rogay Iiraan waayo war kale weyn baa Mareykanka ka soo yeeray waxay ku leeyihiin diyaaradii bishii hore laga soo riday Mareykanka ee F-15 ka ahayd hubka lagu soo riday waa hub Shiinaha uu leeyahay arrinta marka waxay noqon kartaa in Shiinaha laga hortagay inuusan hub daba siin Iiraan mise waxay noqon kartaa inaan loo ogolayn Iiraan libintan weyn ee ay ku soo riday mid ka mid ah diyaaradaha ugu casirsan ee Mareykanka aynu eegno war amurtan la xiriirta oo warbaahinta Iiraan ay wax ka qorayso waa tahay waxaa lagu soo waramayaa telefishinka NBC ee laga leeyahay Mareykanka ayaa wuxuu baahiyay in gantaalka nooca garabka laga rido ee loo adeegsaday in lagu soo rido diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ah F-15 oo ku burburtay koonfurta galbeed ee Iiraan bishii hore in markaa gantaalka uu sameeyay Shiinuhu loo adeegsaday NBC waxay soo xigatay 3 qof oo xogagal u ah arrintan kuwaasi oo sheegay in baaritaano ay weli socdaan si loo xaqiijiyo nooca hubka loo adeegsaday soo ridista diyaaradda mid ka mid ah ilahaas iyo saraakiil Mareykan ah ayaa sidoo kale sheegay in Shiinaha laga yaabo in Iiraan siiyay military oo ay ku jiraan nidaamyo raadaar oo fogaan dheer wax ku ogaada kuwaasi oo Iiraan la siiyay xilligii dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadeen Iiraan ama 28 February warbixintu waxay intaa ku daraysaa in soo ridista diyaaradda F-15 ay dhalisay howlgal socday 36 saacadood oo lagu badbaadiyay dooliyihii diyaaradda dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore waxa uu sheegay inuu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ka codsaday inuusan Iiraan siin wax huba Trump ayaa waxa uu sheegay in Xi uu xaqiijiyay in Shiinaha uusan hub siin doonin ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Shiinaha oo la xiriira hadaladan ka soo yeeray Mareykanka waa hagaag sheekada ugu dambeysay barnaamijka way noo soo socotaa laakiin waxaynu eegaynaa Iiraan waxay xoojinaysaa awoodeeda dhanka ciidamada badda gantaalada waynu aragnay iyo waxay dhigi karaan Mareykanku waxay leeyihiin Iiraan waynu burburinay ciidamada cirka iyo kuwa badda laakiin Iiraan hub cusub ay soo bandhigaysaaba hadda waxa la leeyahay doon 700 kilomitir soconaysa oo qaraxyo ku rakaban yihiin iyo gantaalo ay soo bandhigaysaa Iiraan aynu eegno war uu qoray telefishinka Press TV ee laga leeyahay oo dadka Iiraan ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa soo bandhigay doonyo dagaal oo cusub oo xawaare sare ku socda intii lagu guda jiray bandhig lagu qabtay caasimadda Tehran sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Fars
wakaaladdu waxay sheegtay in doon cusub oo loogu magac daray 27 Rajab ay noqotay mid qalab casri ah ay ku rakiban yihiin oo ku soo kordhay awoodda ciidamada badda Iiraan sida lagu sheegay warbixinta doontan ayaa ku qalabaysan 2 gantaal oo nooca cruise-ka oo loogu talagalay hawlgallada badda kuwaasi oo gaari kara masaafo dhan 700 oo kiiloomitir Faris ayaa sidoo kale xustay in doontu ay leedahay awood sare oo dhaqdhaqaaq iyo leexleexasho iyo weliba dib u gurasho iyadoo ka shaqayn karta xaalado badeed oo adag oo xitaa hirarku ay gaari karaan ilaa iyo 3 mitir soo bandhigista doontan cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli Iiraan ay xoojinayso awoodeeda difaac ee badda iyadoo ay sii socdaan xiisadaha amni ee gobolka iyo tartan military oo ka jira gacanka Carabta iyo marin biyoodka Hormuz mas'uuliyiinta Iiraan ayaan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tirada dooyaha noocan ah ee la qorsheeyay in la soo saaro iyo kuwa kale ee adeegyada waxaana la sheegayaa in tani ay noqotay mid xoojinaysa awoodda ciidanka Iiraan وهجاك إمك واحد نسوق قارني شكل وده بيسيء برنامج كأي نكسو جبين جرني ألعب واحد نكسو قاعدنا شيء كدون شيء كوني كبرنامج كأد كسو دعوتان واحد ذي هنا شيء كذا كسو عبسن هايو تضبعتن شركوين أو هير السودان أي واحد لسه حجسي هو يدد أو سجاشن ينكوين واحد لا ده لكن عريتنا واحد أهي مستقبل كيجا مد أن كفكريين نرش إذا أو عدل haweenaydan ayaa waxay sheekadu ay noqotay mid taabatay qulubta qof kasta oo maqla waxayna leeyahay waxay noqotay mid kamid ah sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa looguna hadalhaynta badan yahay sanadkan ee xajka haweenay lagu magacaabo Maryam al-Nur ayaa ilmaysay iyadoo xajka keentay hooyadeed oo da'deedu ay ka weyn tahay 90 sano Maryam da'deedu 70 ayay dhaaftay iyadana waxay ka soo muuqatay goobaha cibaadada iyadoo gacanta haysa hooyadeed isla markaasna garab socota tilaabo kasta oo kamid ahna gudashada waajibaadka xadka iyada ayaa markaasi gacanta haysay iyadoo ilmeynaysa ayay waxay sheegtay inay mar walba alla ka bariye jirtay inuu siiyo fursad ay hooyadeed kula soo xajiso iyadoo intaa ku dartay inaysan weli u gudin xaqii hooyadeed ay ku lahayd Maryam ayaa waxay sheegtay inay sharaf u ahayd daryeelka hooyadeed oo soo korisay 9 caruur iyagoo ah isla markaasna weli udub dhaxaadka qoyska ah tan iyo markii ay gaareen dhulka barakaysan Maryam waxay tiri hooyaday marnaba kama fogaan iyada ayaan markasta garab taagnaa labadan haween ayaa xajka ku yimid barnaamijka martida boqortooyada Sacuudiga waxaana sheekadooda lagu tilmaamay tusaale nool oo muujinaya qiimaha waalidnimada baarinimada iyo sidoo kale jacaylka hooyada waxaana hooyadan ay sheegaysaa in noqotay riyadeedii mid u rimowday ajiib waatahay inta ayaan ku soo gabagabeynaya caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo